بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا وناكسن دمان أصحابتا كحرا شبكة solarportal.com solarportal Facebook live يهدودين دافو فيسبوك يوتيوب كا solarportal برنامج كان دق أما breaking news كا ayaan doonayaa insha Allah inaan idin la wadaago oo aan ugu talagalin laakiin laga maarmi waayay sababtoo ah caasimadda magaalada Muqdisho waxa ka dhacday arin aad u naxdin badan oo qof walba oo Soomaali ah oo yaqaanay reer Elman aad uga naxisay horta waxaan rabaa intaan barnaamijka gelin inaan u tacsiyo dhamaan ummadda Soomaaliyeed qof kasta oo Soomaali ah reer Elman ama sida loo yaqaan reer Almagan geeridii naxdinta lahayd duhurkan ku timid gabadhoodii Elmas Elman runtii markaan ka arkay Facebooka oo la yiri Elmas dhimatay aadan uga naxay waxaan uga naxay waxay ahayd gabar Soomaaliyeed oo wadankeeda ugu soo laabatay inay wax ka bedesho waxay ahayd qof dhalinyaro ah qof ka soo laabatay qurbaha hamigeedana aha wadankaaga wax ka bedel ma ahayn qof iyada bilowday qoyskeeda ayaa waxaan bilaabay waqti hore oo naftooda u waayay waxaan ka hadlayaa aabaheeda Elman Ali Ahmed oo saa la socotaan 9 bishii March 1996 lagu digay magaalada Muqdisho Ilaahay u naxariiste wuxuu ahaa very few people oo Soomaali ah asaga iyo marxuum Yaxye dadka kaliya lagu tilmaami karo waa wadaniyiin wadankooda u dhintay wuxuu ahaa aabahood si qof walba u ogaado nin ganacsado ah isla markaana activist ah oo jacaylka Soomaalinimo riski u galay isla markaana price-ka ugu qaalisan ku bixi kaasoo aan noloshiisa marka iyadoo la ogyahay oo la xasuusto oo loo sameeyay Elman Peace Center loo sameeyay reerkii military ay noqdeen UN ka ay fadhiyaan loo doortay xataa in la siiyo Nobel Peace Prize ka la siiyo waa geeri aad u xanuun badan oo qof kasta Soomaali ah taabanaysa laakiin inta badan waxaan dhahnaa geeridu waa dhacday annagoo hadda boqolkiiba boqol say wax u dhaceen waan ognahay aan dhihi karin laakiin waxaan idin la wadaagayaa akhbaar muhiim ah oo siday wax u dhaceen ah ayaan la wadaagayaa wax walba idin sheegana ma aragtay wax conspiracy oo hebel baa ka masuula heblo baa ka masuula sidan bay wax u dhaceen sidan bay ahayn marnaba igu imaan maysaan waxaan barnaamijkan aan ku talgalin u soo galay waxay tahay bal dadka Soomaaliyeed ee maaragtay ku daawanaya ama ku dhageysta bal la wadaag arintan naxdinta maaragtay ay u abuurtaan shakhsiyan runtii anoon ka hadlin inta hore waxaan 2 maalmood ka hor waan soo galiyay meesha aad aragteen 2 maalmood ka hor waxaan isla fadhinay aan isla qadaynay nin la yiraahdo Saciid Fadhaaye oo dhalinyaro ah reer UK aan isku nahay oo cameraman ah aadna loo yaqaan caana nin dhalinyaro ah oo Soomaaliya aad u jecel yaan isla fadhinay 2 days ago ninkii dhalinyarada ahaa ba hadda Facebook-giisa mar dhow aan soo share gareeyay screenshot-kan ka soo qaday ayaa wuxuu soo galiyay oo yiri Elmas anoo laptop ku hayay dhimatay yiri weerar baan ugu soo qaaday isla markaana waan soo galiyay Saciid arinta uu soo sheegay Saciidna ma ahan inaan ku aqaano been iyo wax marka wax kasta dhici kara markii dambe bal waxaan isri bal xaalka deji isdeji isla markaana familka gabadhu ay ka dhimatay iyo Soomaalida kale wax ka si xanuun badan bal yaa la soo qorin ka joog markii dambe akhbaar muhiim ah oo ma aragtay sidii wax u dhaceen ayaan ma aragtay aan soo helay akhbaarta idin la wadaagaya markan horta Ilaahay u naxariisto Elmas waa dhimatay cid soo celin karta male rabbigii abuurtay ay u laabatay waa tragedy kan ugu xanuun badan waxaan rabaa dadka waxa jira dad badan oo dibadda iga daawanaya waxaan ka codsanay inaad sii qaybisaan barnaamijkan yar ee muhiimka ah aan ugu talagalin fadlan qof walba share-ka ku dhufo si dad kale u warkaan dadka waxaan u kala saarayaa 1990 wixii ka horeeyay waayo wadanku isbedel ku dhacay waxa kamid ah in aan la kala aqoonin anigu weligay xalana waxaan u haystay xalanihii dadka lagu tababari jiray oo marka airport-ka midig loo dhaafo oo cabaar yar la socdo inay xalana ahayd yana waqaan hadii la sii dhaafana ilaa jasiiro la sii aadi jiray laakiin ayaamihii dambe waxaan ogaaday dagaaladii kadib Amazon markay yimaadeen xalana in la isku yiraahdo afasioni
hangarkii ama meeshii dadneed ee lagu qabtay doorashooyinkii waddanka ka dhacay waxaaba laysku yiraahdaa ilaa Chelsea Villagekan airportka ilaa iyo inta dambe ee wareegsan ee Amisom ay xukunto waxaaba la yiri xalna laysku yiraahdaa runtii maan ogeyn anaga xalna waxaan u naqaanay meeshan kale marka sheekada aan soo wado dadkii 90kii wixii ka horeeyay waddanka ka tagay ay confusion ku noqoneen afisyooni xataa waxa la yiri xalna la yiraahdaa inta xiran oo dhan intaan maqlay waa marka waxaa dhacday darawalkeeda سعيد ويلكن لبدا مaalmood hore aan isla joognay iyada ayaa soo socdeen waxayna u soo duulayeen magaalada Nairobi caasimadda waddanka Kenya waxay ka soo baxeen sida akhbaarta rasmiga ah aan ku hayo oo aan shakina iga jirin waxay ka soo baxeen hangarka dhankaas hangarka afisyooni dadkii hore ayaa yaqaan afisyooni iyo meesha hadda shirarka lagu qabto ee dhanka kale ah ay ka soo baxeen marka meesha laga soo baxo waxa jira secure area oo airportka maaragtay saan loo soo dhaxmaro wada qof walba u yaqaano dadka reer Muqdisho ayaa jirta airportka soo dhaxmarta marka waxay la mid tahay airportka kale kaalimaha shidaalka la soo agmaraa waxa la soo agmaraa Chelsea Village ee la soo agmaraa marka meesha waxa yaala askariga jiifa ayaa meel badan yaala ma way security-ga waaba security-ga airportka marka waxyaalaha aniga qalbigayga oo maaragtay aan ka shaqeysay aan qaadan way waxay tahay meeshan ma ahan meelihii la isku gaadayay ama la isku gumaadayay ma ahan waa meel security-geeda ay aad u adag tahay markii ay ka soo baxeen darawalka iyada iyo waxa isla socday Saciid ayaa isla socday sida akhbaarta ku helay markay soo gaareen meesha ay ku qoran tahay dadka reer Muqdisho yaqaan Sky meesha ay ku qoran tahay waxa hor yaala askariga jiifa ama hambaska waxa la yiraahdo ayaa yaala hambaski markay soo maray baawurku uu soo marayo baawurku noocu doona aado hambasku waa uu istaagaa hambask markuu saan ugu istaago baawurka xawaare kasta uu ku socday hambask markuu istaago ayaa dariishada ayaa xabad ka soo gashay marka waxyaalaha aan la yaabo xabadda haba soo gashay xabaddu waxay ahayd xabad gabadha ay ku dhacday wiilkii ag joogay waxna aan gaarin xabadduna waxay ahayd xabad dadkii hadda baaritaan hadda ayaa meydkeedii waxa loo waday digfer oo baaritaan lagu sameeyay waxa lagu arkay xabad hadda ka horna aan maqlay oo qofka jirkiisa markay ku dhacdo ma qarxaysa xabadda markay jirkiisa ay dhex gasho ayay gudihiisa ku qarxaysa tan hadda la yaabsan yahay oo lagu soo celceliyay taas ay sheekada la ii sheegay marka xabadda waxa la yiri waa xabad aan la dareemin Saciid soo qoray gabadha wuxuu yiri waxay ku dhimatay yiri anoo laabta ku hayay dhimatay isagana wax xataa in yar cidama gaarin marka Saciid fariin ayaan u furay yaan u diray waxa dhici karta qofka markii uu shock ku dhaco oo xabad ama qarax ku dhacdo shock inuu qof ku dhaco Saciid fariin ayaan u furay waxaan u qoray ayu okay Saciid ma fiican tahay WhatsApp ma uusan aqrin cod ayaan u duubay kadibna marka waxaan wacay contact oo arimahan si fiican uga warqabaan marka waxaan yiri waxaan iska ilaalinayaa anigoo sharafta iyo karaamada reer ilman dhowraya conspiracy theory sababtoo inta hadaan la soo fadhiiso aan hebel baadilay ama heblaaya dishay waxay noqonaysaa ayaan daro marka su'aasha qof walba oo Soomaali ah aniga aan kamid ah isweydiinay waxay tahay marka horta qofka waqtigiisa markuu dhamaado ama gurigiisa ha jiifo ama banaanka ha marayo wuu dhimanaya shaki kuma jirtaa laakiin su'aasha la isweydiinay waxay tahay why elmas why airportka dhexdiisa anaga aqliga Ilaahay wuxuu noo siiyay inaan ku fikirno aan isniraahno why ma dhahayno sababtay u dhimatay oran mayno why ay u dhimatay oran mayno waayo taas aqli ma ahan islaamnimana ma ahan taa ma oranayna marnaba why ay u dhimatay laakiin why oo xalana meesha la yiraahdo airportka dhexdiisa ay xabadan why Muqdisho ma wiifta ka socota hadda Muqdisho wiifta kama socoto airportka dhexdiisa maanta ma dagaal baa ka dhacay dagaal kama dhicin ma kanooni baa la isku tuuray maya ma snaaber baa jooga maya gabadhan diyaaradda xataa way ka tagi lahayd waxay u soo socotay magaalada Nairobi saan ku sheegay gabadhii waqtigeedu wuxuu ku soo idlaaday galabta in caasimadda Soomaaliya sidii aabaheeda loogu dilay oo kale ay ugu dhimato waayo ilaa hadda aniga ma dhihi karo loogu dilay ma dhihi karo sababtoo waxaan hubo oo aan idin sheegi karo dhihi karo laakiin informationkii ayaa idin wadaa marka gabadhan marxuumadda ah waa gabar taariikh leh history leh magaca familkeeda ka soo waxay u shaqeysay diplomatic services waxay ahayd xogeyaha koowaad ee safaaradda Kenya
sarkaalad bay ahayd hadda waxay la dhalatay gabadhan la yidhaahdo elwad elman iyo imaan elman oo sarkaal iyo un-ka gabadhii waad xasuustaan peace priceka loo aqoonsado marka waxay ahaayeen family qiimo weyn kuleh soomaaliya ay ku faanaan marka xabaddan aan hore loo arkin lagu soo celceliyey runtii aniga waan mari kari weysay aniga conspiracy theory waxa la yidhahdo af soomaaliga waxaa lagu yidhaahdaa waxyaalaha la yidhaahdo waxaan baa ka dambeeyey waxaan baa dhacay saan bay u dhacday sidaan baa loo sameeyey shirqool baa ahaa conspiracy theory la yidhahdaa conspiracy theory waa qof meel u jeedo oo wax iftiin u baxaya anigu iftiin ima baxayo oo qof aan ku taargadgaraynayo ama aan ku eedayo laakiin su-aasha qof walbo inta ku jira oo soomaaliya maanta i daawanaya waxay tahay why gabadhan meeshii soomaaliya waa meeshii lagu aaminay in dadka ka soo qaybgalaya doorashooyinka soomaaliya oo aeroboortkii ahaa waxaanan ilooweyn bishii july meeshii kale ugu securityga badneed ee soomaaliya oo ahayd engineer yariiso xafiiskiisa ilaahay naxariisto inuu ku dhex dhintay marka dadka ma ahan mucaarad iyo dowladii ma ahan dadka soomaaliga iyadoon emotion iyo xamaasad aan loo hadlin su-aal bay isweydiinayaan su-aashaasoo ah why waxaan maqlay hadda ka hor 6 bilood ka hor waxaan maqlay waxaa jirta target assassination ama dil bareer ah oo loogu talagalay in lagu qaarijiyo qof walba oo soomaali ah oo waxbartay qof walba oo soomaali ah oo ganacsi waddanka keenay qof walba oo soomaali oo waxtar leh magac leh quality leh inta badan dadka markay wax sheegaan aniga waan iska dhageysta waxaan idhaahdaa isma qabato laakiin hadda waxaan dareemayaa marka dhalinyaro oo dry cleaning laundry business ay keeneen magaalada dhexdeeda lagu toogto engineer yariiso xafiiskiisa oo meesha security u fiicnay soomaaliya lagu dhex dilo elmas oo galabta gabar soomaaliyeed ah oo ma aragtay wanaageeda iyadii qoyskeeda aeroboortka dhexdiisa ay ku dhimato aniga maanta marnaba kuma farxi lahayn qof soomaaliya u dhinto marnaba ma dhihi lahayn way dhaantaa laakiin maanta haddii qofkaas la dhihi lahaa caasimadoo hadda laga nastay almost 5 bilood 6 bilood qaraxyo weyn laga nastay haddii la dhihi lahaa gaari baa wax loogu xiray gurigeeda iyadoo kasoo baxayso waday maraysa qarax baa dhacay bistoolad baa qofkii lagu dilay waa waxyaalaha ka dhaco hadda oo basiid kala noqday laakiin marka lagu yiraahdo most secure area meesha securitygeeda ugu adag tahay ee laga soo galo aeroboortka ma waardiyayaan Soomaali sala socotaan Soomaali ma waardiyayaan meeshaas Ugandes baa waardiyaya meeshaas meesha ku soo dhow ee ku soo xigana waa derbigaasna waxa ku soo xiga meel banaana guryaha ugu dhow waxay ku dhow yihiin meesha ugu soo sokayso hotel jazeera ayaa ugu soo dhow marka sniper ma dhici kartaa teeda kale xabad fakatay meel kastay ku dhacdaa laakiin 3 qofood oo baawur la saaran iyada ku dhacda tii rabbiga waa wada xabadan dhacaysa rabbiga casa wajal iyada abuuray ayaa hogaamiyo wada laakiin wax walba reason ay u dhaxaan marka anaga waxaan rabnaa inaan xogaa pause aan sameeyno aan idhaahno gabadhan walaasheena ah oo aabaheedana 1996 bishii March lagu dilay magaalada Muqdisho ma uusan ahayn nin maaragtay dagaalamaya nin isbaaro u taalama ahayn qof kasta yaqaan reer almagan iyaduna ma ahayn gabar maaragtay maanta tiraahday waxaan ahay gabar noocaas oo dagaalamayso oo way dagaalamaysay tabcan waxay u dagaalamaysay wadankeeda inay kor u qaado meeshaan marka sharciga ka jira muxuu yahay meeshaan xalan la yiraahdo dadka intooda badan xalana waa ka hadlaan xalana in laga aamuso marka maya xalana in laga aamuso ma aha xalana qofkii ka aamusa isagana marka wuxuu noqonayaa in uu part of the problem uu ka mid yahay marka waxa loo baahan yahay hadda in baaritaan la sameeyo dadka Soomaali baaritaan la sameeyo ku qancayaan maya hadii kale been baa idin sheegay in yiraahdo baaritaan baa la sameeynaa waa la ogaanaya intiina hadda fadhiso waxaan idin weydiinayaa ilaahay uu naxariistay engineer yariiso goormo uu dhintay goorma la aasay yaa xasuusta ma xasuusataan wallahi inaadan xasuusan wallahi waayo Soomaali way maamada waxay noqotay ninka dhintay kabihiisa dhaama Soomaali ma dhihin qof xasuusanay male inta nooshahay oo active tahay lagu xasuusanaya maalmaha dambe waa la iloobaya report laga soo saarma jira qaabkii engineer yariiso uu dhintay marka haddii airportki iyo gobolkii uu safe ahaan waayo Soomaali marka safe intay ku tahay bal su'aashaas la doonaya qof kasto Soomaali aqli leh elmas ma sniper baa lagu dilay
gabadhan 2 week ka hor ayaa xil loo dhiibay gabadhan runta idin sheegayaan waxa idinka qaranay male 2 week ka hor ayaa xil loo dhiibay gabadhan marraba qoyskeedii inaan xanuun aan meesha oolin karaan usii keena ma doonayo laakiin mas'uuliyadda aniga isaaran as a Somali citizen waxay tahay as a journalist waxay tahay wixii jiro dadka inaan la wadaago aan u soo gudbiyo aan iraahdo idinka ayaa judge laakiin ilaahay wuxuu aqli noo siiyay waxaan wax u baranay waxaan lagu soo abaabiyay waxay tahay inaan kala ogaano manihin xayawaan manihin dawlad baan leenahay ciidan baan leenahay marka haddii la yiraahdo gabadhii wiifta ku dhacday waaba qaadanaya aniga idinka haba qaadanina let's say gabadhii wiifta ku dhacday ilaahay u naxariisto marka wiifta waxay dhacdaa marka xabad la isku dhufanayo ayaan dhaxdaas inaan saaxiibkay oo dhagaweyn leeyahay ilaahay naxariisto aan aad u jeclahay oo aan isla xajinay maalintii carafaad isku dhunkana aan kala tagnay ayaa markii qalalaasaha baarlamaanku ka dhacay waxa la wiifta ku dhacday waan aqbalay waxaan u aqbalay 2 mid baan u aqbalay anoo aqliga isticmaalaya waxaan u aqbalay magaalada Garowe ee caasimadda Puntland ma ahan meel ay dhibaatooyin iyo dil iyo qarax iyo balay ka dhacda ma ahan ugu horeyn dukaankiisa iyo ganacsigiisa meesha ku yaala meesha u dhow ayaa xabada ka dhacay markaas waa reasonable way dhici kartaa weefta inay tagto laakiin maanta dadka degan nawaaxiga airportka iyo xalanahan la sheegay iyo meelahan kale hadii aan maqasheen in la isxabadeeyay oo dhashay kale isku tuuray bal ila wadaaga ani taas ma ogi mana maqal muqdisho kama ana maqal marka hadii la yiraahdo oo suuqa la soo galiyay gabadhii waxa ku dhacday wiifta ku dhacday hadii taas waxa way qof walba inuu indhaha isku qabto oo wuxuu dhahayaa taas aniga ma aqbali karo ma dhageysan karo qof walba ayaa ka xanuunsaday muxuu uga xanuunsaday gabadhan ma gabdhaha kale ee Soomaaliyeed ee maalin walba dhintay ka duwan tahay tabcan kama duwana laakiin ma ahan kali inay facekeedu uu ahaa inay qoys ay ka dhalatay gabadhan military ay ahayd gabadhan waxay ahayd humanitarian gabar wadanka u soo shaqeysay sacrifice samaysay inteena qurbaha ku nool ee meelaha ka soo qeylay ka fiicnay sababtoo waxay tiri anoo og riskiga wadankayga ka jira waan u tagay waan u bareerayaa maantana sidii aabaheed kale ilaahu naxariistay Ahmed waxay bixisay ultimate sacrifice waxaan xasuustaa 12 sano ka hor magaalada London in aan barooradiiq aad weyn u sameynay Alman sanado markay ka soo wareegtay aan ku soo xasuusanay ilaa maanta la xasuusto oo aad taqaanaan wuxuu ahaa ninkii keenay ahaa qalinka dhig qoriga dhig qalinka qaado ahaa qoriga dhig qalinka qaado marka isaga xilligaas waxa la kala dagaal sokeeya socday Dr. Yahya iyo dadkii faraha badnaa ee Soomaaliya oo maanta magac laha ogow inta magac leh baan naqaana anaga inta kale maalin walba dhimatay ma ogin waxa is oranaysaa wadankan is way too risk waan ka cudur daaranayaa korontada iga tagtay meeshan korontada tagtay aan joogo Muqdisho mar walba korontada ka tagtay meeshan ku suganahay waxay noqonaysaa a tragedy in qof walba oo Soomaali ah madaxa saan ula soo kaca in la gablameeyo oo madaxa laga toogto ama sniper aniga ma dhihi karaa sniper laakiin waxaan ka seenahay xabadan aan lagu arkin meesha xabadan hadda ka hor ayaan maqlay waxa isticmaalay ciidamada Mareykanka ay waxay ku isticmaalayeen dagaaladii Fallujah ka dhacay ee wadanka Ciraaq waa xabad waxa la yiraahdaa markay kugu dhacdo xataa dareemi maysid markii hal elbraqsi jirka ay ku jirto ay ku dhax qarxaysaa la yiri one of the most painful way to die marnaba in reer Elmas gabadhan quruxda badan ee reerkan quruxda badan ee Soomaaliyeed ka dhalatay inaan si xanuujiyo aan sheego laakiin tan oo kale hadii aan ka aamusno aan idhaahdo business as usual aday kugu imaanaysaa wiilka kale Soomaaliyeed oo doonaya inuu investment ku sameeyo wadanka ama maalgeliyo ku imaanaysaa waxay ku imaanaysaa macalinka dibadda ka imaanaya jaamacadda ku imaanaysaa waxay ku imaanaysaa qof walba shaqo abuur inuu sameeyo ay ku imaanaysaa marka mar kale barnaamijkan aan ku talagalin intaan ogahay laakiin waxaan idinka ballan qaadayaa insha Allah hadii aan noolahay magaalada Muqdisho anaga waan isla joognaa qof walba ay jooga magaalada Muqdisho ninkan saaxiibkay oo Saciid oo shalay maahay darrad aan isla qadaynay oo maanta aan ku arkay qoraalkiisa meesha hadduu maanta dhiman lahaa waxa ugu horeeyaan dhihi lahaa sawirkiisa fiiri ani asoo isla qadaynay ilaahay u naxariistaan dhihi lahaa marka dambe waa la iloobi lahaa laakiin haddii aan ilowno sidii engineer Yariso aan u ilownay sidii Dr. Yahya aan u ilownay
sidii almagan aan u ilownay axmed aabbahood aan u ilownay qof kastoo soomaaliya oo dhinta waan iloobaynaa marka aniga maba aaminsanayba hadda this is the first time aniga waa necbahay conspiracy theory waxyaalahan been abuurka la dhoodhoobo waa necbahay laakiin the first time in my life shaki ayaa i galay what is going on waddankeeni maxay tahay hadda xamar ma ahan meel ay xabad ka dhacdo ama qarax ka dhac maahan ayaamaha u dambeeyey ilaahay baa mahadle waana ku shukrinaynaa taasi waxaa iska kaashaday ciidamada nabad sugidda ciidamada qalabka sida gabadhan ay ka mid ahay iyo dad badan ayaa maaragtay majority-ga dadka ka shaqeeya xerada xalane Soomaali ma aha maraan weydiiyay hadda kor aan tagay meeshan xalan la yiraahdo waxaan nahay Soomaali maxaa loo shaqeeysiin waayey mid ka mid ah dadkii cadaanka in buluga meesha wuxuu yiri you cannot trust a Somali fair enough maybe good point ayuu leeyahay laakiin Soomaali kasto ma la trust garayn karaa maya majority-ga Soomaali waa trust garayn karaa ma ahan dad wadankooda dib u keenaya laakiin waxaa la doonayaa haddii wax laga maqlayo Soomaali haddaan nahay in dilkan gabadhan loo geysay arxan darada uu noqdo waxa luqadda Ingiriiska lagu yiraahdo watershed xilli lagu kala baxayo waxaan oo la oranayo baaritaan aan ahayn galka inta hala gari hala kala tuuro hala baaro halka loo tagay tacsiya loo dhigay Facebook la soo galay geeri xanuun badan way naga badbadatay annaga waxaad xasuusataan dhibaatadii iyo rafaadkii nagu dhacay injineeriisu qof ugu dambeeyo oo aan ognahay oo la yaqaano qof walba og xanuunkii nagu dhacay annagoo dhan injineeriisu ilma adeer inaad tihiin ama isku reer aad tihiin ugama xanuunsan waxa xanuunsatay qof sacrifice oo sameey qurba jooga qurbaha ka yimaaday una fiirsa pathka meeshan ka dhacay waxa ka dhacay majority waa dadka shaqada wadanka u haya oo dibadda ka imaaday ayaa somehow meesha laga siibay sababtoo ah hadalkiisa meel ayuu gaaraya maanta aniga idin la hadlayo aniga xilna ma hayi waxaana intaan ka afdheera intaan ka soo hadlaa reerkayga iyo hooyada iyo aabahay iyo dadkan ka dhashay ma jeclina Muqdisho joogo waayo waxay leeyihiin Cabdinaasir riskeed qaadanaysa laakiin aniga waxaan aaminsanahay ereyga ah inii aqaafu Allah rabbil alamin ilaahi abuurtan ka baqay weligay ma ka baqay maanta arintan aan soo fadhiisto anoo risk inaan galay ma ka baqay ma maalin u baadhiman laha waxaan rabaa marka in lagu soo xasuusto ninkii ka baqay maalintaas gabadha Soomaaliyeed ee la dilay dadkii kale ka hadlay it doesn't matter siyaasadda meel dhig laakiin haddii ay noqoto state funeral loo sameynaya waxba laguma jeedo state funeral wax lagu jeedo haba yaraatee ma jirto dadka Soomaaliyeed qaasatan qoyskeeda qof kasta wuxuu ku qancayaa gabadhan in dilkeedu uu noqdo watershed meel lagu kala noqdo oo albaabkan xalana la furo la arko what is going on dhulkan xalana ma ahan dhul ka madax banaan Soomaaliya waa Soomaaliya waxa ku jira ma naqaan balaaya soo gasha balaaya ka baxda waxaan maqlayay dhibaatooyinka wadanka waxa laga soo abaabulaa xalana laakiin aniga unless aan wax gacanta aan ku hayo cadeyn oo aan ka baqayn in la wadaago weligay ma dhihi karo aan jirin ma sheegi karo laakiin haddii la yiraahdo weefta xalana ku dhaxdhacday airportka agtiisa haddii intee safe ah intee la aadaa markaa taas qof walba inuu isweydiyo adoo xanaaq kugu jira inuu isweydiyo laakiin haddii baaritaan la sameeyo oo dad la xiray aan aragno hadday yihiin ajnabi hadday yihiin afrikaanta Amazon hadday yihiin qof walba inkastoo aan maqlay dadka Amazon waxay leeyihiin maaragtay prosecution lagu sameeyay qaarkood la yiri ama lama maxkamad lama keenin karo laakiin haddii la keeno yiraahdo hebel oo afrikaan hebel ahaa mise Mareykan inta ayaa soo tuuray xabad ama sidaan oo baaritaanka siga ay u baarto CID-da iyo adduunka loo baaro la keeno oo gabadhan timeline-keeda la raaco dad badan waa ku qanacayaan laakiin haddii la yiraahdo geeri aad u xanuun badan Facebook last 48 hours aan ku jirno waxba tari mayso hadalkeena waa hal bacad lagu soo noqonaysa laakiin haddii waxaan banaanka la soo dhigo la soo xaday qof walba Soomaali wuxuu dhahay Allah ilaahay waxa kala socda this is very shameful tan waxay ku tusaysaa niyad jabka wadankaaga Soomaali aniga kama niyad jabin laakiin markaan maqlo ilmaha dhimatay waxa dhahaysa nobody is safe waan ka hadalnay life ayaan soo galay waan xasuustaa maalintii injineeriisha loo qarxiyay Ilaahay naxariistay anoo ku sugan Toronto wadanka Canada caawa in la wadankan ku sugan magaalada Muqdisho aan joogaa marka meesha elman ay ku badbaadi weysay nobody is safe runtaan ku sheegaya biya been la isu sheegin yaan la dhihin maaragtay qaraxyadii waa yaraadeen wadanka dilalkii qorshaysan waa qaraxan laakiin wax kasto sidan ah kan markuu ka soo baxo dad badan oo majority-ga 99.9 Soomaali wax xanuunsanayaan waxayna dareemayaan in ay elmaas oo kale ayaan maxaan kaga duwanahay waa gabar Soomaaliyeed qurba jooga aniga qof Soomaali baan nin Soomaaliyeed qurba joog baan waxaan kaga duwanahay male
ma shaqaan ku haysanaan u nimaanaa waxba kalaan ku samaynaa meesha ma dabaqyaan ku leenahay ma ganacsi maya jacaylka waddanka aan u qabno aan kusoo laabanay dadka inaan tusno imagekii ugu dambeeyay xalay aan soo gelin waxayd magaalada muqdisho iyo quruxdeeda dad ayaa jecel foolxumadeeda iyo dhibkeeda iyo waxyaalaha ka dhacay inay ku farxaan laakiin maanta u malayn maayo qof walboo damiir leh oo dhiig leh Soomaaliya ilmaas inuu ku farxayo dhimashadeeda ilaahay u naxariisto waxaan ku soo celinayaa mar kale aan ku soo afjarayaa siday wax u dhaceen dadka hadda nagu soo biiray si aysan ugu laaban ama YouTube Solar Portal ka daawan karaan waxa dhacday galabta duhuradii iyada gabadhan marxuumadda Elmas Elman oo reer Elman u dhalatay ka dhalatay darawalkeeda iyo wiil cameraman oo Saciid fadhayl yiraahdo aan saaxiibnahay oo 2 maalmood ka hor shaah ila cabay ana aan qadeeyay isla ma qadeyn shaah buu cabay ma qadeynayo yiri asma ila qadeen isla joognay isaga ayaa bartiisa Facebook wuxuu soo geliyay weerar ayaan lagu soo qaaday gabadhiina waxay ku dhimatay anoo laabta ku haya waxay ka soo baxeen marka aan ku soo celinay ku soo biiray waxay ka soo baxeen hangarka electionka lagu qabtay Afisiyoni ay ka soo baxeen by the way Afisiyoni ilaa iyo Jazeera inta u dhaxaysa waxa la yiri Jazeerada lagu dabaasho waxa lagu yiraahdaa xalan ayaa la yiri ani ma ogeyntaa mar dhow ayaan maqlay markay ka soo baxeen gacantaada midig qofkii meesha soo maray ayaa yaqaan meesha waa the most secure area oo Soomaaliya ku taalo waay no doubt dhanka midig meel Sky ku qoran tahay darbigooda uu ku dhagan yahay bahalahan shabaqadan tugada lagu ilaaliyo kale markay marayaan askariga dhulka jiifa ay ka istaageen oo ku soo celinaya markay ka istaageen askariga dhulka jiifa xabad ayaa ku dhacday xabad caadi ma ahayn haday tahay sniper oo shiishaha meel laga soo tuuray Allahu yaclam kulay baaritaan ayaa socda xabadda ku dhacday second markay jirkeeda ku jirtay xabadii jirkeeda ku dhex qaraxday waana dadka security-ga oo aan la hadlay galabta waxay yiraahdeen waxaan hore u aragnaa ma laakiin aniga waxaan arkay dagaalkii 2004kii 2006kii u dhaxaysay ciidamada Mareykanka oo isticmaalay waxayna u isticmaalaan ma leeyahay ciidamada Mareykanka ba gabadhan dilamay qalad laga fahmin ayaa xilligaas waxa lagu eedeeyay inay isticmaalaan xabadda qofka markay ku dhacdo second kadib jirkiisa ku dhex qarxaysa oo jarjaraysa marka saan hore ku sheegay ma doonayo gabadha galabtay u soo socotay magaalada Nairobi ee wadanka Kenya xilay laba wiil kor qabatay meesha lagu dilay ayaa ka sii xanuun badan dilkeeda waayo waa meesha qof walba oo Soomaali oo ku lugeyn karo u dhigi karo safe ayaa tahay waa meesha laga duulay airportka marka wixii soo kordha waxa igu balan ah riski kasto ay leedahay inaan la wadaago waxaan ka baqay habayraatay ma jirto haddii tan lagu badbaadin karo qof kale wadanka wax u soo bartay ama wax u qabanaya waa la sameeynaya insha Allah anagana will take care of ourselves laakiin waxaan iloobayna hadalkii 6 bilood ka hor ninkii ugu yiri qof walba madax kor u soo qaada macallin ah wax soo bartay ganacsada ah dibadda ka yimaaday dadka indhahoodu furan yahay oo qaabka ajnabiga loola macaamilo iyo kuwa kale yaqaana waxa la yiri qofkaas uu afdheer yahay ee halaga taqluso saasa socota dadkaas hadii la dabar gooyana dadkii ku soo dhiiran lahaa wadanka imaan lahaa kuma soo dhiiranayaan marka waxaan sugnaba waa dawladda Soomaaliyeed ciidankeeda CID-da dadka wadanka maamula in gabadhan Soomaaliyeed ee ka dhalatay qoyska qiimaha badan ee Soomaaliyeed ee taariikhda weyn ku leh wadanka Soomaaliya in la baaro taariikhdooda ma ahan inay ahaayeen dad wadanka xoog ku qabsaday ama madax ka ah ma ahan taariikhdooda taariikh wanaagsan oo taalooyinka dadka loo dhisay u qalma ayay ahaayeen Ahmed Elman iyo qoyskiisa maanta marka sacrifice ay wadanka u sameeyeen haddaan Soomaalina sacrifice waan u sameeynaa aanan ka aamusin qof walba oo aqli leh oo ka hadla oo yiraahdo no we cannot keep quiet yiraahdo wadanka anaga iskale kuwa xalana leh oo meesha ku soo xiran oo maalintii ku shaqeey $1,000 male anagu noo haraya siyaasad iyo mucaarad iyo dawlad meesha dhig youth ka hadii laga baabay dhalinyarada laga baabay wax garta laga baabay iyo wadanka wala xidib jiraya intaan yar dadka reer Muqdisho iyo dadka reer Soomaaliya nabadan yar ay heleen looma ogola anigu ma aaminsanay argagixisay waxaas wax sameeyay mar walba ma aaminsanay wax baa jira walaalayaal indhaha la furo waa in salaamaya wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ilaahay u naxariisto Elmas Elman qoyskeeda iyo qoyska Soomaaliyeed ee jecel wanaaga iyo Soomaalinimadana ilaahay samir iimaan ka siiyo adin salaamaya anigu Cabdina Ismaaciil waxaan leeyahay wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh